halkani waa deegaanka Janaac Cabdalle oo qiyaastii 60 kiiloomitir u jira magaalada Kismaayo. Waa deegaan aad muhiim u ah marka laga hadlayo istiraatiijiyadda military. Waxa uu kulmiyaa wadooyin dhowr ah iyo degmooyin dhowr ah. waxaa dhowr maalin ka hor gacanta ku dhigay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. sidaad arkaysaan halkani waa goob ay maleeshiyaadka argagixisada baadda kaga qaadi jireen gaadiidka iskaga kala goosha deegaanada iyo degmooyinka gobolada Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. sidoo kale ciidamada xoogga dalka ayaa deeq raashin guddoonsiiyay shacabka degmada Janaac Cabdalle. taliyaha qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka iyo wafdi saraakiil oo hogaaminayo ayaa kormeeray deegaanada laga xoreeyay maleeshiyaadka khawaarijta al-shabaab. wuxuuna ciidamada kula dardaarmay inay ka xoreeyaan deegaanada kale ee gacanta ku hayaan maleeshiyaadka khawaarijta al-shabaab. bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. waxaa sharaf ii ah oo wiil u ah inaan maanta idinku soo booqdo Janaac Cabdalle iyo deegaanka Janaac Cabdalle. waxaan sanadii ka wadaa madaxweynaha Jubbaland baan sanadii ka wadaa iyo maamulkiisa. waxaa lagu faraxsan yahay oo lagu reereynayaa guushaad ka gaadheen iyo khawaarijta meesha laga eriyay. waan idiin mahad celinayaa. waa soconaynaa isma taagayno insha Allah tacaala ilaa aynu ku aala soo taabano ma istaagayno. waa mahadsantihiin. guul baan idiin rajaynayaa. halkaa ka wada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirwac Umar Baaruush, idaacadda codka ciidamada qalabka sida deegaanka Janaac Cabdalle.